sida weyn ee maanta iskugu soo baxeen taageerayaasha xisbul xaakimka kulmiye waxay istaan u tahay in dadka ku nool magaalada Boorama ay ku qanacsan yihiin waxqabadka xukuumadda diyaarna ay u yihiin inay mar labaad soo doortaan fagaaraha oo maanta isu soo buuxu ka dhacay ayaa waxa buux dhaafiyay taageerayaasha xildhibaanada ee xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka ee magaalada Boorama waxayna wateen taageerayaashaasi boodhar waaweyn oo ka muuqdaan sawirada musharaxiinta iyo calanka muuqa dheer leh xisbiga kulmiye isu soo baxan oo ah kii ugu ballaarnaa ee noociisa ayaa waxa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha beeraha shaqada iyo arrimaha bulshada warshadaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxa ka qayb galay barasaabka gobolka Awdal maayarka magaalada Boorama iyo xogayaha dawladda hoose gudoomiyaasha degmada iyo gobolka ee xisbiga kulmiye madaxda ururka qaranka ee haweenka ee naaw waxgarad iyo 20 xildhibaan iyo taageerayaashoodii waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada ee xisbiga kulmiye Cabdi Suldaan Kadiye iyo gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga kulmiye Muuse Carab Dugsiye waxayna u mahadnaqeen taageerayaashaasi barasaabka gobolka Awdal iyo maayarka magaalada Boorama ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxayna sheegeen inay u riyaaqeen xuduudda taageerayaasha xisbiga kulmiye uu leeyahay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyo ururka haweenka qaranka ee naaw oo qaban qaabada hawshaasi kaalin lixaad leh ka qaatay hoostana ka xariiqay in taageerayaasha baaxadda leh ee xisbiga kulmiye isugu soo baxay ay guul u tahay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamida musharaxiinta golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka warshadaha Dirsaaq Cali Cismaan wasiirka beeraha Faarax Cilmi Geedoole wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Barre Garaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Cali Xamuud Jibriil waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in Boorama oo dhani ay u soo baxday kulmiye waxaan u leeyahay isbeddelka Boorama sayro kulmiye ka muuqata maanta waxaan kulay nagu laqaanaa tanay xisbi xaakimka mar walba oo boqolkiiba boqol waxa weeye xisbiga waa in lagu taageeraa waxqabadkiisa waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa وهذا العافي تيفي قرنك مقالة بورما